labaadoo maaragtay laga xanaaqay amba laga caroodarabaya gudaha dibadda marka sawirkiisa maaragta moodo xadgudub waqtiyada gudaha iyo dibadda iyo loo qeybiyey taas markay dhacday anigu waxaan ahay xildhibaan qaran ayaan ahay oo Soomaali xildhibaan Soomaali ayaan ahay midda kale marka 4.5ka waxaan ahay xildhibaan waxaan kamid ahay saddex xildhibaan oo wasuulo maaragtay beeshiisa matasha ayaan ugu kamid ahay marka sidaas ayaan u istaagay oo aanu maaragtay idaacada uga hadlay aanu uga mid noqday laba guddi oo guddi xildhibaan ah oo todoba ka kooban aanu xubin ka ahay todoba guddi ka kooban beesha muduliyad qaasatan jufo ka dhashay xulatana gudoomiye ayaanu ahay waxaana ii suurta gashay intii lagu jiray xilliga uu xirayay gudoomiyaha gobolka Banaadir inaanu madaxda waddanka ugu sarreysa oo madaxweyne ugu horeeyo aanu la kala kulmay 8 jeer adiga kolley taageero badan iyo codsiyo badan iyo taageero badan kadib waxaa suurta gashay inuu Maxamed Dheere dib xorriyadiisu u helo marka waxaa kaliya markaa rabaa inuu shacabka Soomaaliyeed inuu u sheego in qofka la xiri karaayo laakiin waxa ay ka caroodeen kolley inay hadal ku jirto calaamadaha amba maartay hadalka hore u soo sheegay marka kiiskaas way dhamaadeen waxaan jeclahay marka in hor laga socdo laga fikiro wixii kala soo socda kiiskaas ka xirwan jeclahay وهذا مدام محمد حرق لغا سي دايه isla markiina uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho marka ma dhici kartaa in mar kale ay dhibaato ka timaado wuxuu la mid yahay xorriyadii oo xaq u lahaa dib u helay dabciyan haddii uu la yimaado wax ka soo dabciyan waa qofka soo muwaadin ah maartay xadgudbo wuxuu ku dhici karaa ayaa ku dhici karaya tan kale waxa meesha ka mareeyeen si accidentally oo maartay ku lug lahayna sida muwaadin ka soo Soomaaliyeed ugu dhici karaysa laakiin wuxuu leeyahay كونيو هذا هو وين أنا هذا ليه كرايو وحى ayaa ku soo foodlay amba waxa ayaa jira ma jirto bal waxaan ku sheegayaa siyaasi ka soo jooga amba shakhsi ka soo jooga wadanka uu magaciisu maarta muuqdo ayaa always in targeta amba maartay uu la kara any time wax ku dhici karaya laakiin wax soo gooniya kuma arki mari mislaadahay maadaama maamulkii Nuurcadde uu ka qaaday xilka gudoomiyenimada maamulka hadda joogana uu xiray mislaadahay caqabada waxa wada Maxamed maxkamad mihi oo anagu ku cadeey karo markii la xirana maadaama kuwan hay mas'uulkii xildhibaanada iyo guddiga ku jiray basna ugu weydiina war waxa tabanaya maxaa ku dhacan uma dhihin marka taas ma aha waxaan anigu maanta ku cadeey karay tan iyo intii uu maamulka la wareegay mudane ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa isbedel ku yimid dhanka ururada hubeysan ee ka soo horjeeda Soomaaliya haba ugu horeysay riixidii la riixay kooxaha argagixisada al-shabaab haddaba waxaa rabaa inaad wax nooga taataabatid guulahaas iyo wixii sababay bismillaahir rahmaanir rahiim abdikii sidoo kale waajisay waxaa jira horumar iyo dawladda ku meel gaarka xagga ciidamada ay ka sameysay si loo weeqi lahay amba wadanka looga saar lahay qolada tan soo duulay wadankii raba inay iyagu ka dhigtaan hoy inta xun soo timaado iyagoo kaashanaya amba maartay arrinta ay ku heliyaan qaar Soomaali oo dambeer laawayaala marka sidaad carabka ku dhifatay waxaa jirta guulo badan oo dawladda ku meel gaartay haddii markaa noqon laheeday gobolada gaar ahaan gobolada xuduudka leh maartay dawladda dariska nahay sida Kenya Ethiopia guula la taaban karo oo yaa laga gaaray gobolna waxaa jira inta badan laga wada saaray waxaan ka marayay caasimada Soomaaliya idana guul kale laga gaaray waxaana hadda bilaabatay oo hoos u dhac weyn amba wiiqtaan ku yimid qolatan fidnawadayaasha ah sida la saadaaliyana waxay hadda u bilowday inay wiiqto kora amba graftigora hoos u dhac ku yimiday waxa la isku raacsanyahay dib soo kor soo kici doonin oo kuwaas iyo meesha ka bixi doonaan ma haddana ilaahay waxa amaanta iskala dawladda oo Soomaaliya qaasatan xukuumadda Farmaajo oo runtii waxyaalo badan iyada ku ciisay ciidamadii markay u shabeysay mushaar
joogta ah bil kasta markay xukuumadda damaanad qaaday kii dhintana maaragtay reerkiisa maaragtay la ogaan doono dowladda iyo xanaanay doonto kii dhaawacana maaragtay la daaweyn doono niyadaasoo markay timidee ballanqaadyadaas iyo dowladda xukuumadda wanaageeri waxaa soo baxay guulaha hadda sheegtay oo aanba la wada ogyahay waxaan rajaynayaa inay maaragtay beriyaha soo socda guula kuwa ka waaweyn ay Soomaaliya ku wada faraxtay in la gaari doono haddii la ogolaado waxaa dhacda mararka qaar markii guulo ay gaareen dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya isla markaasna ay barbar socdaan khilaafka u dhaxeeya xildhibaanada iyo saxaafadda oo iyadu si cad u taageertaa ama kaga soo horjeedsata dowladda guulaha ay gaareen haddaba maxay kula tahay ma saameyn kartaa guulahaasi inay wax dhibaataa gaarsiiso ma qabo inay dabcidaas saamay karaysa waayo dowladdu waa dowlad taageer haddii noqoda xagga dhaqaalaha iyo xagga ciidanka laakiin waxaan qabaa inaysan hadafkii dowladdu leedahay inay xubnihi dowlad la gaari doono xildhibaanada saan uu kuu sheegay dabciyan waxbaa yara si ah laakiin cid mas-uula bicid la aaminay ee xumaatay iska daa Soomaaliya oo iska danyar oo iska maaragtay waxbana haysan waa qofku markuu danyar yahay amba dowladda yeerta cid kasta uu nugushahay waxaa ka qabtaa dad Maraykan aan joogno Maraykanka wax bartay dhaqaale ayaa arkaysaa mas-uul xil weyn haya ee mararka qaarkood ku xadgudbaya shuruucda waddanka u tiilay amba waddankii bixinaya sirtiisi ee loogu yeerayo spy marka mid iyo badan 550 aan nahay mid iyo 2% waxaan u xildhibaanada way jiraan waxaa soo arkaa qodobada inaysan maartay keeni doonin wax hadafka leeyahay wax u dhimi karaya media carab ku dhufatay su'aashaas waa su'aal aad iyo aad loo weydiiyo sida loo eeyo maaragtay 550 xildhibaan ayaa markaas laga cawdaa media especially kuwa ilaa heer caalami wararka soo gudbiyo soo dira iyo website-yada taa laakiin Soomaalidu waxay tirahaa oodu soo kala qoreeyaan ayaa loo kala qaadaa maalintoora ay imaan doontaa arrintaas in la maartay iyo cidii wax ka dambeeyay wax laga weydiiyo lasoo istaajiyo laakiin hadda focusko amba priority-gu ma aha kuwa guulaha ka been sheegaya amba lugta jiidaya in xooga la isugu geeyo ma aha hadafka hadda socda weli haddaba kaasi wuxuu ahaa xildhibaan محمود جيد أو هلال أو نقص بقضي سماع كل تي في وما سمت aanu la yeelanay xildhibaan maxamuud geedi awdilwele halka aad kala socotaan waa Soomaali Kulan TV barnaamijkani waxaa igala qayb qaatay wariye Cabdikariin Yuusuf iyo wariye Maxamed Ducaale Maxamed dhanka farsamada iyo kaamirada waxaanu ay farsamayaqaankii weynaa isla markaana ah soo saaraa barnaamijka waa Aboole waxa idin daadihinaya anigoo Sikriye Xaashi intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono inagoo isku duuban waxaynu kaga tageynaa sida ay is aragti dambe oo xiiso leh